oo ashahaadanaysa oo rabbigood iyo rasuulkooda rumeeyay oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu farayna raacay wuxuu ka reebayna ka reebtoon oo islaamka ku jiro oo aan la guursan haday jiraan waxaan rabaa inay Soomaalida iyo culimadu iga soo jawaabaan dad aan la guursan laakiin muslim ah oo diinta islaamka haysta oo nabigooda rumeeyay oo saalixiin ah oo aan la guursan haday dadka islaamka ku dhex jiraan dadka cilmiga leh oo iga cilmi badanow inaan noo soo sheegtiin oo markaas aan ku qanacno annahna alleela waxa tihiin kuwii la sheegayo ilaahay quraankiisa ku sheegayo yir muslimiinna waa tihiin laakiin wiilkiina lama guursan karo gabadhiina lama guursan karo haday diinta islaamka meel kaga ogyihiin ay kaga taalo Soomaalidu ha noo soo sheegto qofkii aniga hadda saaka fiidiyowgayga aan dhageysta Soomaalidu aad bay dadka u dulantahay dulankay aad ugu dheeraysay oo hadda hadalkayga inta dhiba ka soo jawaabana wax allaale wuxuu igu soo yiraahdo ama aniga igu yiraahdo ama dadkaas oo awalba dulmaya ku yiraahdo dhimalay ajarkeeda ilaahay buu ku xisaabsanaya waa ilaahay subxaanahu wa ta'aala qofna uma dhaafo qofka kala dambiga uu ka galo cirdigiisa iyo sharaftiisa iyo dhiigiisa iyo maalkiisaba qofka islaamka way ka xaaraantinimaysanta waxaan la yaabanahay marka muddo ka badan 700 oo sano oo dadkan la soo dulmiyay dhibaato gaar ah oo ay geysteen hadda ayagu anigu horta ma garanayo dadkii garanayana haday jiraan ha ii soo sheegeen because wax badan aan raadiyaa dadkan dambiga ay galeen oo Soomaalida dhexdeeda ay sida ugu dulantay haday jiraan oo dad cilmi u leh jiraan Soomaali oo dhanbay arrinkay ku socotaay ha noo soo sheegaan war waxa la inii dhibayo oo la inii dulmayo oo maalintii gabar Soomaaliyeed iyo wiil Soomaaliyeed oo beelahaas isguursadaan aad intaasoo dambiya u galaysiin Soomaalida waa intay qusayso Soomaalidu ma wada xuma oo dadku ma wada maarta dambiga ma wada galo inta ay qusayso baan sheegay inta ay qusaynin oo ayagu dulmiga jirkoodii afkoodii iyo naftooda ka xaraan nimeeyay kuma jiraan laakiin waxa ka sheekaynayaa majority Soomaalidu inta ugu badan meel kasta oo Soomaaliya ka degan yihiin waa arrin ay isla wada og yihiin isla wada qaateen okay wiil baa wuxuu iga sheekeeyay maantay in uu nin wadaad ah oo masaajid ku jira oo culimada kitaabada laga raacdo kitaabka noo akhriya baa waxaan ku yiri sheekhow aan isku fahmi lahayn sheekhow oo nooga maxaadareeyo buu yiri maartay inaan dadkaas la dulmin dadka waa dad walaalaheena Soomaalidu dambi bay ka gashaa way dulantaa cirdigoodii dhiigoodu ma banaana way lagu xad gudbaa ayaa maalintii dambe waxaan ku yiri gabar baa reerka ka rabaa ila doon sheekhow markaas waan adeerkay markaas wuxuu igu yiri ma reerkaas sayto isma guursanee gabdha reerahagaas kala ka raadso waxay yiri Sacuudiga ilaha reerkaas waa dad islaama oo maartay maxaan ku raadana waxba ku kala duwaneyn oo Soomaaliya oo maartay ahlu diin ah hadda Sacuudiga nagu lahaa maxaa haddana saa u leedahay marka anigu horta waxaan fahmi waayay isaari waayay waxay yihiin mar baan isweydiiyo waxaan isiri ilaa waxaan isguursan karin waa gaal iyo muslim ah oo gabadha islaamka ahi ninka aan guursan karin waa gaal gabar muslimad ah ma xafid quraana diinta islaamka taqaana rasuulkeeda kaleey salaam iyo wixii maarta ilaahay subxaanahu wa ta'aala faray fartoon diinteedii ku toosan wiil muslim ah wuu gayaa wuuna guursan karaa laakiin adigu marka inta timaadid raadid gabadha wanaagsan ee muuminada ah ee islaamka ah ee Soomaalida haddana kula sii ah ma gayo anigu ma guursan karo ma gayo marka aad leedahay oo aniga aad leedahay kuma gayo marka adigaan muslim ahayn Soomaa ilaa aniga waxaan igaynin waa gaal aniga gaalku ma gayo sidaydaba tootaliba sababta uu si igayna waxa weey gabar muslimada ahaan ayo ashahaadanayso ilaahay iyo rasuulkeeda taqaan ilaahay baana iga xarimay ninka gaalka isma bagaynaba halkaas aad soo istaagtay Soomaaliyo waxaad tira aniga isma gayno marka ima gaydide maada gaal ah Soomaaliyeed su'aasha sorta bal isweydiiyo anigu muslim baan ahay layne anigu muslimad baan ahay ima gaydid wiilkiina sidoo kale waxaad ku tiri gabadhayda ma gaydid isagii baa wuxuu la taagan yahay war anigu islaam baan ahay
ومسلم بان هو إلهي رسولك السنة وانا قانا gabadhanna waan guursan karaa wax iga maanacaya ma jiraan oo waxa laga yaabaa afartii rasuulka kaleey salaam yiri ku guursada inuu qof walba leeyahay hadaa tir gabadhayda ma guursan kartid ma gabadhaada marka nasaara iyo yuhuud baaba loo ogol yahay ninka inuu guursado haday diinteeda ku toonsan tahay alloora ma gabadhaada marka aan ahayn muslim marka ila wiilkan riisankaad ugu diidaysid inta waxaan ahayn oo anigu aan garan karaa horta ma jiraan waxa soo haray oo kale waxa weey wax asaaka reason ah oo aad gabadhaas iyo wiilka ku dulmidaan oo aad ugu hanjabtaan waa la gubayaa horta ma jirto qabiil hadaa ku faanaysaana oo qabiila ku faanaysaana tiro adunku meena tirin waa sida hore u sheegay oo waxa laga yaabaa adunku hadda qabiil yar hadaad ku durtaan isagu hadda wiilkaasi markii beel la dhaho qolobo meel bay ka soo jeedaa inuu dhul ka soo jeeda ma ahani nin hawiye qabiilka ugu weynaa ka dhashay oo maxamed gargaartaa weey ma garatay oo hawiye oo dhan baa la walaala asaga oo hadda qabiil ugu maarta ku duraysaan horta qabiilaan ma jirto oo dhulka kama soo dhicin wiilku gabadhan dambi ay gashay oo wiilkan saaka aad ku dulantaan ama ugu dhaartaan ama ku gubtaan ma jirto Soomaaliya wiilkan kaliya iyo gabadhan ma ahan reerkan Allah isku barakeeyo gabadhaana waan u hambalyeynaya wiilkaas gabar baa waxay tiraan ka fiirsanay YouTube-ka gabadhaani waxay jabisay bay tiri darbi gabadhu ma isa jabinay waxay guursatay wiil Soomaaliyeed oo muslina oo gayaankeeda oo walaalkeeda oo Soomaalida kamid ah bay guursatay darbiyo iyo maxaan ku iraadaa meel cadaabi ka jirtay gabadhu horta ma idmin waxay guursatay gayaankeeda wax darbi la jabiyay iyo darbiyo meeshaan yaala ma jiraan waa dhaqan xumo Soomaalidu ayadu darbiga isku xirtay Soomaali aniga ma believe garaysani Soomaali intay isdulmayso oo qof walaalkooda dulmayaan oo qof walaalkooda ciqaabayaan oo qof walaalkooda cadaabayaan inay dagayso oo inta nabadi ka aslaaxdo la leeyahay barwaaqadaas iyo naruuradaas ay Soomaali Ilaahay subhanahu wa ta'ala siiyo Ilaahay wuu siin karay uma malaynaya because dulmiga ay iyagu isdulmayaan ba Ilaahay subhanahu wa ta'ala garabkooda ka wada baxay oo ayaga dhexdoodii baa isdulmay Soomaali maanta hadii la leeyahay qof lama guursan karo oo la mamnuucayo oo dambi asagu uu galay hadda anu reerkan dambi ay galeen waaba la ii sheegi leeyahay hadii qof dambi lagu mamnuucayo war Soomaaliya ay maxaad gasheen inta Ilaahay adduunkan korkiisa ku xarimay qofka dhihi kara Soomaali ma gelinin ma lii sheegi kara dhiig haday noqoto haday xoolo islaameed noqoto haday sina iyo kufsi noqoto haday irdi islaam oo lagu xadgudbo noqoto wax allaala waxa aan reebanay Soomaali maxameday maantay oo Soomaali la leeyahay ma gelinin dambiyada intii laga faanayay Ilaahayna looga fogaanayay ayay Soomaali wada gashay gabigeedaba waxaan reebanay ma jirto hadii wax la isku caayayo maxaa taa la isugu caayi waay dhiigga islaamka oo la banaysto maalin walba la daadinayo maxaa la isugu caayi waay xaqa islaamka iyo xoolaha maalin walba islaamka oo la kala dhacayo maxaa la isugu caayi waay maxaa la isugu caayi waay gabdhahan yaryarka iyo dumarkan islaamka ay muuminiinta masaakiinta maalin walba la kufsanayo maxaa la isugu caayi waay dambiyadan Ilaahay agtiisa ka galayno kabaa'irta maxaa la isugu caayi waay waxaad aniga igu caydaa meeshan ma yaalaanba waxaad igu caayaysaa waa ina idulantay kaliya dulmi kaliya had igu caayi kartaa oo igu caayinaysaa dulmigana Ilaahay hortiisa kama dhaqaaqi doontid qofkii aad dulantay asagoon xaqiisa lagaaga goynin oo xaqi aad ka gashay oo cirdigiisi iyo nasabkiisi iyo maarta dhiigiisi aad ku xadgudubtid adigoon lagaaga qaadin Rabbiga subhanahu wa ta'ala hortiisa kama dhaqaaqi doontid inta Soomaali baan leeyahay reerka dambi ma gelin gabadha iyo wiilkaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala isku barakeeyo inta Soomaali baan leeyahay dadkan maalin walba la dulmayo oo dulmiga qaadanayo dhabarka u ridanayo dhiigaaga iyo cirdigaaga iyo sharaftaada waad ku dagaalami kartaa Ilaahay baana yiri subhanahu wa ta'ala
cirdigaaga sharaftaada iyo maalkaaga ku dagaalam war sidanay sax ma ahan ya sidan sax ma ahan ilaahay wuxuu idinka dhigay dad nool oo naf ku jirto oo xayya oo nool oo islaam ah ya oo dhiig iyo naf ku jirtaa tihiin in la in dulmo 700 sano wax ka badan ha qaadanina lama ogola Soomaali dhexdeeda ayada isdulantay oo tirana ka maxay qabiil badan iyo ana ka weyn soo ayaga hadii ay maartay wax u tarayso waxay maanta ku faanayaan qof walba asaga ilaahay la hortagi doonee maalinta qiyaamaha yaan laga waayin qof walba helo jannada dadkaas yaan laga waayin Soomaalida joogto ee adduunkan korkiisa maanta wixii dhintay qof walba adigoo saaraxo wanaagsan oo aan dambi lahayn oo aan boorso dambi xambaarsanayn ilaahay hortiisa subxaanahu wa ta'aala maalintii la hortago yaan laga waayin adigoo wanaagsan oo saasahoon dambi lagu haysan cunug dhashay xalaw kala iimow hadaad ilaahay agtiisa subxaanahu wa ta'aala aad u qabtid in sidaa lagu hortago laguma hortago sidaa ilaahay dulmiga aad dhexdiina ka galaysiina wuu isaga kingoyn doonaa dadka dulmiga ka daay qofna qof kama fiicna qofna qof kama qayma badna qofna qof kama qaalisana waxa kaliya lagu kala fiican yahay in ilaahay subxaanahu wa ta'aala cabsidiisa loo kala dhow yahay bas wax kale oo lagu kala duwan yahay ma jiraan waxaan ku soo gabagabeynayaa insha Allah isniinta markay anaka noqotahay 2 o'clock USA Mareykan baan joogaa Minnesota time life baan soo gali doonaa anaka badan insha Allah arrinkan aan ka hadli doonaa Soomaaliyay sidan aad ku jirtaan sinaba sax uma ahan Rabbi tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakiil